السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلبته waxaan ku sii soconnaa airportka magaalada Seattle. Waxaa inoo imaanaya nin Soomaalida agtooda qiimo ka leh oo runtii anigu xasan ahaan ka mid ah dadkaan isleeyahay waa dadka farkutiriska ah ee Soomaalinimada ay ku weyn tahay. Saa la socotaan magaaladan aan joogno jaaliyad tiro leh oo Soomaali ah ayaa degan, laakiin dadka siyaasiyiinta gaar ahaan inay noo imaadaan way ku adag tahay sababtoo ah Pacific Northwest aan ku naalnaa waan fognahay inta badan dadka markay Minnesota ama Columbus ama Ohio yimaadaan halkaas ay ka laabtaan. Marka runtii waa markii labaad oo noo imaanayo Ambassador Maxamed Cali America oo inooga imaaday wadankii naga soo booqday oo maalmaha nala joogi doona lagu jiro toddobaadka xorriyadda Soomaaliya ilaa July 1st ilaa July 7 ayuu nala joogi doona islaan insha Allah taala. Marka hadda airportkan ku sii soconnaa mar dhawaan tagi doona halka waxa igu sugaya akhyaar magaalada Seattle laga yaqaano oo aan ka xusi karo mayorka airportka magaalada uu ku yaalo oo la yiraahdo Mayor Maxamed Cigaal oo nin Soomaali ah. Airportka aan uu ka soo degayo Cali America safiirka uu ka soo degayo magaalada uu ku yaalo nin Soomaali ah ayaa wuxuu ka yahay mayor ama duq magaalada isna meesha ugu sugaya. Sidoo kale akhyaar kale oo aan ka xusi karo Liibaan oo ganacsada magaalada ka mid ah iyo Cali Sheego iyo gabdho ayaa ayaguna meesha ugu sii sugaya. Marka mar dhawaan tagi doona insha Allah taala muuqaal yar oo soo dhaweyn ah ayaa ay codsadeen inaan ka sameeyo. Marka muuqaalkaas aan idin la wadaagi doonaa insha Allah taala. Ambassador waxaan leenahay soo dhaw magaalo laga jecel yahay. Markii ugu horeysay oo noo imaaday waxaan ka mid ah dadka nasiibka u helay ee ka qayb galay buuggii uu waday uga hadlayay shaqadiisa iyo safiirnimada uga hadlayay oo Samsung Foundation lagu caawinayo waan joogay. Marka alxamdulillah haddana Janice waan u helay inaan ka mid noqdo akhyaarta airport ku soo dhaweynaysa. Marka la socda barnaamijkaas kooban ee soo dhaweynta insha Allah. caawa waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa Cali America, Ambassador Cali America. Cali America waa gudoomiyaha dekedda Xamar. waxaan u soo dhaweynaynaa dad badan oo Soomaaliya halkan ugu yimid. waxaan u soo dhaweynaynaa Cali America ama safiir ha ahaado gudoomiyaha boorti oo Muqdisho. waa nin Soomaalinimadu ku weyn tahay, Soomaaliduna ay jeceshahay sida ay Soomaalidu ugu weyn tahay oo u jecel yahay baan anagu u jecel lahay. ma baan waxa weeye nin walba adduunka wuxuu ka shaqaysto un ba u yaala. marka haddii alla idmo we have full schedule. aniga wuxuu ila kulmayaa Briman soo dambe Commissioner Maxamedna sidoo kale wuu la kulmayaa iyo Port Authority iyo Seattle Authority. marka oday waa soo dhaweynaynaa insha Allah. ما شاء الله مير horta saad og tahay community-geena dadka wanaagsan aad bay u soo dhaweeyaan ما شاء الله. ninka la yiraahdo Cali America wuxuu ka mid yahay dadka farkutiriska ah aan isleenahay dadka Soomaali wax badan u qabtay. صح marka kulli anigu meel ku waan dadkii ma shaqan ka soo baxay صح. alxamdulillah aan ka soo gaaray adiguna sidoo kale waa shaqaynaysaa والله community meeting baa soo jaray waanu ku yiri absolutely wax kale ma ahanoo qofka bini aadamka nin baa wuxuu yiri meesha ku dhalanayna cid aan u dhalanayna lama weydiin. laakiin waxaan adduunka nolosha aan rabno inaan noqono anaga inoo taala. muddo dheer baan la socday social media-da Cali America. waa nin Soomaalinimadu ku weyn tahay, Soomaalida jecel. marmar waxaad arkaysaa xaafuun iyo qadalay iyo shiikh iyo meesha la yiraahdo afmadow isagoo lugeynaya miyiga lugeynaya. ma baanta waxay taas ku tusaa inay Soomaalidu u siman tahay, inuu Soomaalinimada jecel yahay, Soomaalidooda ku weyn tahay. marka aad iyo aad baan ku salaamay anagoo dhan si fiican baan u soo dhaweynay. waana soo dhaweynaynaayo ilaa meelaha ugu sarreysay iyo governorkii meesha oo gelinay insha Allah. absolutely maalmuhu nala joogi doona haddii alla idmo qaban doona waa in la wadaagi doonaan yes. city of Seattle waxay guddoonsiinaysaa Somali Independence Proclamation. absolutely ma baanta marka halkii xorriyaddan ku jirno aad iyo aad ma insha Allah muuqaalka akhyaar kale nagula jirta aad iyo iyaguna kelimadaan ka qaban doona insha Allah. ma sha Allah. la socod bidin السلام عليكم. السلام عليكم. maanta waxaa noo imaaday Cali America isagoo laga invite gareeyay Port of Seattle iyo mayorkii Cigaal oo Seatag ayaa invite gareeyay. sharaf bay noo tahay inuu maanta noo imaado isagoo la kulmaayo madaxdii oo elected Somalis ah oo Washington State. marka qorshaha waxaa waaye in proclamation jira bisha koodeeda mayorka siin doono. bisha labadeedna waxaan geen doonaa Port of Seattle tour si uu uga wada hadlo labada arrimood labada port to port businesskooda.
السحرير سمية ما شاء الله على شيء أصلا كل وقت قانا نمشي شيء أيوه سمعنا واحد هذا صدر مغسل حدا مبهنا وحكم دي هاي أخيار قضيات من قال هذا أنا ضلنا سياسة الجو أنا كرتها وقت بدر كون ما شاء الله مرجع علي ما شاء الله أفضل ما شاء الله ما شاء الله دادنا كمان موقت ما شاء الله إن سبعنا وصل دوين دون أمباسادور كل أنا حكم دي هاي سياسيين فرقترسك وأنت هاي يرو أكلنا ما أهل قبت كيسة يصير سومالي من أقوى تاي سومالي ساسو جعليهين اللي كانتو مقالة كسو سومالي وطقع فونديشن كيس الملبن كشقية يب سمسم فونديشن يس يعني not only هذه شقدي سو دولة ما قبت كيس هو as ambassador but also what he's doing currently with his foundation Yasmin Foundation ها ما شاء الله مركا أخيار كلام إنه سعتها يقولون كلمة أنت قمت وأنا سامر كل شيء مركا سو أنت أولو كذي ما شاء الله ما شو تاجنا صاحبكنا سودوينا محمد على أمريكا الله أنت من وجود بيسي تذكر رسلنا هاي welcome سيالا لنا وابري بوندر وابري السلام عليكم ايربورت waxaan joognaa Seattle waxaan ku soo dhaweynaynaa walaalkeen saaxiibkeen maxamed cali America oo weekna la joogayo marka soo dhawaan leenahay hello maanta waxaan aad ugu faraxsanahay in maxamed cali America saaxiibkeena old classmates keedeenii ahaa inuu yimaado Seattle so we welcome him welcome to Seattle markii labaad oo imaanayo waaye laakiin marka hore unfortunately ana safar jiray ismaanan arag safaran jiray السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ما أنتم حانمد مقالة سيارة وحا شرفي إنه يقصوا دويان قارك من الجالات الصوماليات وقايمين أيو ميركا محمد علي العقال صاحبكي سيتي شرفي إيتا معلمان جهدونا وحا كون صوب بقندونا تقدى سياتل وإذن عزونتي رئيس حمدي محمد عزونتي مركا معلمان جهدونا مركا رئيس سياتل ميركا آدي هذا ما سنتين ما شاء الله ماستر سودو هذا runta ugu faraxsanahay ina Seattle noogu maado markii labaad mar waxa jirta adigoo buug wada oo imaaday marka runtii fursad saciida aad iyo aad isku sugayaan reer Seattle insha Allah taala sida aad Soomaalidu u jeceshay baan anagu ku jecelnahay حيسال عدم iyo biya jiri kare qofku عسل haye marka soo dhawaan ku leenahay markii hore imaanay maanan joogin marka cali thank you so much in ay soo ogeysiisay marka soo dhawaan ku leeyahay ما شاء free مقالة ayaa siinayna هذه proclamation of musicodeeda marka is total different ball game this time 2026 waxa waaye different waxa waaye هذه ما شاء الله thank you very much invitation عرسنا كإمادة هذه commissioner محمد أو invite grace port of Seattle that will be July 2nd marka taasna waa aad bay wanaagsan tahay in elected Somalis leenahay oo mar walba meeshan la yiraahdo Seattle iyo soonahan badanaaba madaxda iyo mas'uuliyiinta Soomaalidu ma yimaadaan sababtoo ah waanu dheernahay laakiin markii mid iyo laba noo yimaado aad baan ugu faraxsanahay anagu Soomaalida halkan joogna gobol iyo magacyamo kala liin waan ka xishoonaa way naga hooseysaa ilaahay waa naga koriyay ma fahantay marka aad baan ambassadorka baanu u soo dhaweynaynaa uguna faraxsanahay assalaamu calaykum